maanta insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan eegno teknolojiyadda dalkan Maraykanka iyo meelaha ay wax marayaan iyo shaqo la'aan ku soo socota ma soo food saari doonta dad fara badan oo iyagu ka shaqeeya darawalnimada gaar ahaan Uberka iyo Lyftiga. magaalada aan dalka Maraykanka ka degannahay Denver, Colorado waxa aad iyo aad ugu soo batay baryahan gawaarida iskood isu wada oo kaligood iswada self driving ka ah oo loo yaqaano Waymo. Waymo ayaa hadeer waxa ilaa bishii December 2025 bilowgeedii waxa ay wadaan tijaabo ay ka wadaan magaaladeena waxaana ay hadda ilaa hadeer soo saareen ama suuqyada markasto ka hor imaanayo gaari keligii iswada inkasta oo darawal hadda uu dhex fadhiyo oo gawaari yaryar oo cadcad oo kambaniga Jaguar la yiraahdo uu sameeyay. Haddaba Waymo magaaladeena way soo gashay laba gaari oo kala nooc ah ayaa ka hor imaanaya marka Denver magaalada dhex marayso, gaari cad iyo gaari blue ah. Gaariga cad waa gaari yar oo ilaa 5 qof qaadi kara, 3 qof iyo 1 qof oo kale. gawaarida buluuga ana waa gaari van oo kala ah oo 7 qaad ah oo Waymo XL ay u bixin doonaan. Marka arrinkan isaga ah waxa uu hadeer Denver ka socdaa ilaa bishii 12aad mardhowna waxa ay qorsheynayaan in gawaaridaas keligood iswada oo iskood u socda ay magaalada ku dayn doonaan iyaga oo bilaa darawal ah. Haddaba kambaniga Waymo waxa uu ku soo biiray kambaniyada gawaarida keligood iswada leh oo isaga ayaa horey u bilaabay magaalooyin fara badan ayuu ka howlgalaa hadeer, laakiin magaaladeena December buu ku soo biiray Waymo gaari keligii iswada oo shaqeynayo waay. Marka waxaan rabnaa insha Allah tacaala inaan eegno kambaniyada kale oo raba warkan waa war ku saabsan teknolojiyadda. Marka kambaniyada kale oo raba iyagana inay ku soo biiraan gawaarida keligood iswada. Number 2 waa Waymo oo hadda magaalada ka howlgalay magaalooyin fara badan Phoenix, San Francisco, New York, Atlanta, meelo badan, Memphis, magaalooyin fara badan buu ka howlgalaa hadeerba inkasta oo uusan totally bedelin dadkii Uberka waday shaqo la'aan aysan ku dhicin. Laakiin arrinkan waa arrin socda. Kambaniga Waymo waa ku howl jira. Waxaan marka idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay idmo kambaniyada kale oo iyagana ku soo biirayo self driving technology-ga gawaarida keligood iswada. Okay, waxa hadeer ku xiga oo isna bisha December howlgelin doona gawaaridiisa Uber, kambaniga ugu weyn adduunka oo dhan dunida dacaladeeda waa taqaanaan. Uber meel uusan ka shaqeynin ma jirto. Daatada ugu faraha badanna Uber isaga ayaa iska leh because wuxuu haystaa intaas oo milyan oo darawal oo uu ka ururiyay informationka xagga wadida gawaarida. Darawaladan dhan oo socda oo aad arkaysaan mid kasto wuxuu ka ururinayaa information sida mappingka, maababka iyo sida u socdaan wada kasto meesha ay marayso. So Uber bisha December ayuu isagana wuxuu qorsheynayaa in uu ku soo biiro gawaarida self driving ka ah. Meeshaas waxa shaqo ku weyn doona darawallo aad u fara badan. Kambani la yiraahdo Lucid oo isagu gawaari luxury ah oo gawaari raaxa ah soo saara ayuu deal la galay. Technology-ga driving kana kambani kale ayuu kula galay. So gawaarida Uberka ayaa isagana wuxuu bisha December San Francisco ka bilaabi doonaa gawaari keligood iswada oo socda. Marka Uberkii laga shaqaysan jiray waxa uu ku biirayaa self driving technology. goolkiisa ugu dambeeyay oo ujeedka uu ka lahaa dhan hawshan oo dhanna waxay ahayd in darawal dhan uu ka taqluuso kambanigaas isaga uu iswado faa'iido raadis buu ahaa Uber weligiisba. Marka Waymo technology-ga gawaarida isticmaalayaan waa Jaguar, kambaniga la dhaho very luxurious waaye gawaari raaxa ah. Waymo marka waxa ay technology-ga isticmaalayaan waxa la yiraahdaa Alphabet, waxaana iska leh kambaniga Google
oo self driving technology-ga gawaariga inuu keligii iswado waxa u suurtagelinaya robotka waa Alphabet baa la yidhahdaa, Google baa iska leh. Uber gawaarida isticmaalaya waa Lucid gaari very luxurious waaye, aad u raaxo badan, oo hadda mardhow ku soo biiray saaxada dalka Mareykanka. Marka hore Lucid maba jiri jirinba, gawaari khatar ay sameeyaan oo aad u qurux badan oo raaxa ah iyaga dhanba. Marka Lucid iyagana waxay dhiil la galeen Uber. December sanadkan ayuu waxaa bilaaban doono in uu isagana howlgeliyo gawaarida keligood iswada oo ka shaqayn doona Las Vegas, San Francisco, meelaha ay kasoo bilaabi doonaan waaye Los Angeles. Uber isaga u fududahay because already wuxuu haystaa informationkii darawaladii hore u shaqaynayay, dhaatadii uu ka urursaday iyo xogihii uu ka haystay ayuu isticmaali doonaa. So wuu ka horeeya, isaga more advanced waaye. Kuwan hadda mapping bay samaynayaan magaaladeena oo kale, Waymo aad bay ugu wareegaysaa. Marka Waymo waxaa ku soo xiga Uber, ayadana waxaa ku sii xigi doona kambaniyada waaweyn ee Mareykanka. Waa dhaqaale raadis, corporationskan waa dhaqaale raadis. Marka waxaa ku xigi doona Uber marka uu isagana howl galo, hal mar buu wuxuu rabaa inuu dhowr magaalo uu ku sii daayo gawaaridan uu soo diyaariyey. Isaga technology badan time badan kama gelaayo in ay maaragtay maabgalayaan meelaha, laakiin waxaa ku xigi doona hadduu ilaahay idmo ayagana oo haddeerba already app storeka soo galay oo hadda shaqaynayo appkooda oo uu noqdayba weliba kii ugu downloadka badnaa. waxaa ku soo xiga kambaniga uu iska leeyahay Elon Musk, Tesla kambanigiisa waxaa la yidhaahdaa RoboCab baa la yidhahdaa. Robo waa robotkii mashiinkii, iyo cabna waa taxigii. So RoboCab isagana qaybtiisa sheerka wuxuu ka rabaa in self driving technology-ga iyo darawaladan shaqada laga ceyrinayo oo la rabo in intaas oo milyan oo qof oo darawalo ah ay shaqo la'aan ku dhacdo, teknolojiyadana loo isticmaalo in uu qaybtiisa ka qaato rabaa. Ninkaas waa nin asaad ogtihiinba arrinka teknolojiyadda aad maaragtay uga dambeeya barnaamijka teknolojiyadda. So isagana wuxuu soo saartay RoboCab waa cab taxi oo robot uu wado. Wuu soo saaray already, wuxuu noqday second most downloaded appka loogu download badan yahay labaad Play Store-ka dadka iPhone-ka wata usually ayuu noqday, App Store-ka idhaahdo iyo Play Store-ka labadaba. So isagana wuxuu rabaa qaybtiisa inuu ka soo galo. Marka u horeysa waxaa sheekadan bilaabay Waymo iyo Alphabet oo Google ah. Waxaa ku soo xigsaday Uber oo isagana isticmaalayo kambaniga Lucid iyo self driving technology-giisa. Waxaa haddeer isagana isdiyaarinayo RoboCab oo Tesla ay iska leedahay. Marka arrinkan wuxuu lahaan karaa khasaaradiisa iyo faa'iidadiisa. Darawalada hadda wada Uberka waxa ay samayn karaan in ay lacag ku invest gareystaan oo ay maalgashi ku sameeyaan kambaniga Teslaba, si markay shaqada ka ceyriyaan oo Uberkii aad wadatay iyo hawshaadii aad ku shaqaweyso si xagga kale lacag uga samayso, maadaama Tesla ay tahay kambani weyn oo stock marketka ku jiro oo investment ah ku samaysan karto ama maalgashi ah ku samaysan karto. So intuu ku soo gaarin waxaa samayn kartaa oo shaqo la'aan kugu dhicin in aad maalgashi ah ku samayso, lacagtaada aad ku darsato Teslaba si aad uga faa'iido arrinka Tesla teknolojiyadan hadda ay soo wado. So Tesla waxay wadaa RoboCab taxi keligii iswada oo robot ah. Iyadana way ku soo biirtay gameka. Ninka odaga qaybtiisu rabaa inuu qabsado. Maxaa kale oo dhici kara marka Tesla haddii ay ku soo biirto? Markaan fiiriyey gaari Tesla haddaad leedahay, inta aad shaqada ku jirto waxaa u diri kartaa suuqa oo ku soo shaqaynaya, uu soo wareegaya. Markuu soo wareeg dhamaysto 8 saac oo kale inta shaqada ku jirtay, isna wuu soo shaqaynaya. Kadibna markaa u baahato waa u yeeranaysaa gaarigaagii, wuu ku imaanaya, wuu ku qaadaya, gurigu ku geynaya. Markaas ka dambe ayaa charge ka gelinaysaa Tesla maadaama aysan gas isticmaalin. So Tesla, RoboCab, Waymo, Alphabet iyo Google isu tagay. Waymo nimanka la yidhaahdo Lucid iyo Uber oo isu tagay waxay samaynayaan iyagana Uber self driving technology. So saddexdaas company markay halkaas joogto
maraykanka waa ogtihiin dhaqaalihiisa 5 ilaa 6 nin buu gacanta ugu jiraa. Jeff Bezos, Elon Musk, ninka la yidhaahdo Mark Zuckerberg oo Facebook iska leh, iyo Jeff Bezos oo isna iska leh kambaniga la yidhaahdo Amazon, iyo raggan hadda Uberka iyo waxaan iska leh. Koox yar baa dhaqaalaha dalkan maraykanka oo dhanba 4-5 qof ayuuba gacanta ugu jiraaba. Marka iyaga ayaa tartamayo. So ma rabo Google Tesla inay ka hormarto. Tesla ma rabto inay Uber waxaan ka rabaa Google Tesla inay ka hormarto ma rabo. So way isku wada raacsan yihiin arrinkan. Tesla, Robocab, Waymo iyo Alphabet. Waymo way soo saareen nimanka la yiraahdo. Waxa ay dhiman wali dadka aan hadda idin sheegay taajiriinta ah oo dalkan lacagta ugu badan haysta. Waxa ay dhiman Mark Zuckerberg oo isaga Meta, Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo waxaan iska leh xagga ii dhig. Waxa technology isagana raba qaybtiisa inuu qaato oo lacagtan oo aysan dhaafin sheekadan kambaniga Amazon ninka iska leh Jeff Bezos. Jeff Bezos isaga muxuu ku darsanayaa? Jeff Bezos isaga waxa uu diyaarsaday kambani la yiraahdo Jukebox. Jukebox isagana wuxuu isticmaali doonaa self driving technology oo gaari keligii iswada. So sharekiisa lacagahan inay dhaafaan iyo qaybahan diyaar ma aha maadaama ay tartan ku jiraan iyaga oo Elon Musk iyo Mark Zuckerberg iyo waxan ay tartamayaan iyo Bill Gates iyo raggan tartan uu ka dhaxay Warren Buffett. Waxa uu rabaa isna inuu qaybtiisa uu qaato. So isagana wuxuu diyaarsaday kambani la yiraahdo Jukebox. Jukebox waxa hadeer ay testing ka samaynayaan oo hadeer ay tijaabo kaga jiraan. Isaga waxa basekiisa waa Washington State-ka, Washington, Seattle, Washington iyo aagaas ay testing hadda kaga jiraan. Halka Tesla kambanigiisa Robocab ee self driving ka ah uu testi iyo tijaabo kaga jiro magaalada Austin, Texas, oo hadda uu headquarter uu ka dhigtay, saldhig uu ka dhigtay ninka la yiraahdo Elon Musk iyo Tesla programkiisa X oo uu rabo SpaceX uu rabo halka inuu ka diro satellite-ka. Marka Uber dad badan ayaa ku shaqo weyn doona self driving technology-ga hadda socota. Self driving technology-ga xagga ka socota waxa ku shaqo weyn doono malaayiin qof. Kolley horta Maraykanka especially waa ka bilaabatay Waymo, Robocab, Jukebox iyo kambanigan kale oo isna la yiraahdo Uberka naftiisa. Intaas oo milyan oo qof ayaa ku shaqo weyn doonta sida hadda ka muuqata. Marka insha Allah taala teknolojiyada Maraykanka sidaas ayay u socotaa. Waxa la soo wada socda gawaari kaligood iswada oo suuqa ka shaqeeya oo dadka qaada. Janiska ugu fiican waxa waaye in kambaniyadan iska lahaan doona self driving technology-ga aad maaragtay investment ku samaysato stock market-ka inta gasho. Markaad ku shaqo weysa xaggan inay xaggan kale lacag aan ka samayso aad isku daydo. Laakiin right now sida hadda ay u muuqato waa la isu soo jeedaa. Insha Allah taala waxaan eegi doonaa waxa kale oo ka soo kordha. Laakiin magaaladeena hadeer nafteeda Waymo way ka shaqo gashay ilaa December-na way joogtay. Haddana mapping ayay samaynayaan. Intaas ayaan rabay insha Allah inaan ka dabageeyo. Waa mahadsantihiin dhammaan asxaabtayga la soo qayb gashay live-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.